العام عام ترجل الفرسان من شيخنا البازي للألباني. فترى الجزيرة والشآم مواجع. shaykhul albaani waxa uu ka mid yahay muxadisiinta u gargaartay diinta islamarkaana juhdiga ballaaran ku bixiyey difaaca sunnada, la dagaalanka ahlubidca iyo kuwa hawadooda raaca. warbixinteenna maanta ayaan ku soo qaadan doonnaa inshaa allah taariikh nololeedkiisa. magiciisu waa abuu cabdiraxmaan naasiruddiin maxamed bin nuux bin aadam bin najaati alalbaani. waxa uu nacaan ku ahaa naasiruddiin alalbaani. علماء قد حملوا الهداية معلما للحق يهدي حائر الثقلان. waxa uu sheekhu allaha u naxariistee sannadkii 1332 hijriyada oo ku beegneed 1914 miilaadiyada ku dhashay magaalada ishquudarrah oo xilligaasi ahayd caasimadda albaaniya. waxaana nicmooyinka uu allah ku galladay ka mid ah inuu ka dhashay qoys tawaaduc badan oo ahluddiin ah. waxaana aabbihiisa alxaaji nuux najaati alalbaani uu ka soo qalanjebiyey macaahidii sharciga ahayd ee caasimadii khilaafadii cuhmaaniyiinta ee astaanah, maantana loo yaqaano istaanbuul. waxa uuna ku soo laabtay dhulkiisa isagoo bilaabay inuu cilmiga faafiyo, dadkana waxbaro, ilaa uu ka mid noqday mashaayikhda ugu waaweyn ee albaaniya. safarkii albaani ee shaam. axmed zooqo oo sannadkii 1922 hijriyada maamulayey dalka albaaniya ayaa bilaabay inuu bulshada dalkaas ku soo rogo nidaamka reer galbeedka. isagoo sidoo kale raacaya dhabihii mustafa kamaal ataaturki ayuu soo rogay qawaaniinta wadciga ah, haweenka muslimaadka ah ku waajibiyey inay xijaabka tuuraan, dhaqanka la qaadanayana uu noqdo mid reer galbeed. aabbaha dhalay shaykhul albaani ayaa markii uu arkay dhaqankan xun waxa uu isagoo u cabsanaya diintiisa, ehelkiisa iyo ubadkiisaba go'aansaday inuu u hijroodo dhulka shaam. waxa uuna tagay magaalada dimashik ee caasimadda suuriya, maadaama uu magaaladaas aqoon u lahaa oo uu soo maray safarkiisii xajka. waxa uuna xilligaas sheikh albaani jiray 9 sano. dalabkiisii cilmiga. markii ay tageen magaalada dimashik, shaykhul albaani waxba kama uusan garanayn luqadda carabiga. waxa uuna bilaabay inuu daraaseeyo carabiyadda. waxa uuna qaar ka mid ah culuumta diinta iyo carabiga ka bartay majmuuco ka mid ah mashaayiikhda iyo culimmadii ay asxaabta ahaayeen aabbihiis, kuwaasoo ka qaatay funuun kala duwan. imaamku waxa uu soo dhigtay dugsiga dhexe. isagoo weli dugsiga dhexe ku jira ayuu aabbihiis ka saaray dugsigaas. waxa uuna u bilaabay inuu guriga ugu dhigo cilmiga, maadaama uu ahaa sheekh faqiih ah. halkaas ayuuna ugu bilaabay inuu u dhigo tajwiidka qur'aanka kariimka, culumta naxwaha carabiga iyo fiqiga xanafiga ah. allah ha u naxariistee waxa uu sheekh albaani dalabka cilmiga xadiidka bilaabay isagoo 20 jir ah, kolkaas uu ku saamoobay diraasaadka ay samaynaysay majalladda almanaar ee uu soo saaray sheekh maxamed rashiid ridaa. nolol maalmeedkiisii. shaykhul albaani waxa uu aabbihii ka bartay qaabka saacadaha loo hagaajiyo, taasoo ahayd xirfaddii uu ku shaqaysan jiray ee uu nolol maalmeedkiisa ka soo saari jiray. waxaa la sheegaa inuu shiikhu 2 maalmood uun shaqayn jiray, inta kalena uu waxbaran jiray. imtixaanaadkii uu shiiqu soo maray. sheekhu waxa uu bilaabay faafinta dacwada, isagoo culimmadii xilligaasi jirtay ee ka shaqaynayey masaaliixda xukuumadda ay aad u mucaaradeen, iyagoo dadka ku kiciyey manaabirtana ku weeraray. intaasi kuma kaaftoomine waxa uu arrin ku gaaray inay masaajidda ka manciyaan, islamarkaana ay ka hor istaagaan inuu duruus ka bixiyo magaalooyinka dimashik, xalab, laadiqiya iyo magaalooyin kale ee ku yaala suuriya. waxa ay sii wadeen xadgudubkooda. waxa ay gaartay heer ay ku been abuurtaan, taasoo sababtay in xukaamta carbeed ay xabsiga dhigaan shiikha. isagoo muddo ku dhow 8 bilood ku xirnaa qalcadda dimashik sannadkii 1967 miilaadiyada, taasoo ahayd qalcaddii lagu xiray shaykhul islaam ibnu teymiyah raximahullah. safaradiisii cilmi iyo dacwadeed. waxa uu shaykhul albaani galay safarro dhowr ah
kuwaasoo uu ku maray gudaha suuriya iyo waddamo kale. waxa uu booqday badi magaalooyinka kala duwan ee dalka suuriya. safaradiisii ka baxsanaa suuriya waxa uu ku tegay waddamada urdun, lubnaan, kuweyt, imaaraadka carabta, qatar, sacuudiga, dhulka la haysto ee falastiin, masar, marocco, sbain iyo waddamo kale, isagoona qaban jiray nadawaad cilmi ah islamarkaana su'aalaha uga jawaabi jiray dadka. waxa uu allah waafajiyey inuu ku dukado masjidka barakaysan ee al aqsa, wuxuuna macallin ka soo noqday jaamacadda caanka ah ee madiina almunawara, halkaasoo madax looga dhigay qaybta xadiidka sanadku markuu ahaa 1381 ilaa 1383 hijriyada. waxa uu kaloo shiikhu allah waafajiyey inuu soo nooleeyo sunnooyinkii ay dadku ka haajireen, kuwaasoo ay ka mid yihiin in salaadaha ciidda lagu dukado goob musalle ah, sunnada salaada taraawiixda in lagu dukado 11 rakaco, xijaabka haweenka muslimaadka ah, ka digidda qubuurta oo masaajid laga dhiso laguna dukado, iyo sunan kale oo badan. waxa uuna sidoo kale shiikhu ahaa mid baac dheer ku leh tawjiihinta dhallinyarada muslimiinta. sheikh albaani waxa uu caan ku ahaa la dagaalanka tacasubka loo tacasubo madaahibta, isagoo dadka ku boorin jiray in wax laga qaato sunnada iyo qur'aanka lana raaco fahamkii salafka. hadalladii ay culimmadu ka yidhaahdeen sheekh ibnu baas isagoo ka hadlaya shaykhul albaani waxa uu yidhi, ma arag casrigan aynu joogno ruux cilmiga xadiidka kaga caalimsan albaani. sheekh ibnu cuthaymiin isna waxa uu leeyahay, intaan ka ogahay sheikhan waxaa lagu bartay inuu sunnada ku dadaalo oo bidcada la dagaalamo, bidcadaas oo ah mid ku salaysan ictiqaad iyo camal. imaam shanqiidi waxaa la wariyaa in isagoo dersi akhrinaya haddii uu soo galo imaam albaani inuu joojin jiray dersiga isagoo salaami jiray, ixtiraam iyo weynayn uu weynaynayo darteed. xanuunkii sheekh albaani. shaykhul albaani allah ha u naxariistee waxa uu maalmihii ugu dambeeyey ee noloshiisa la ildarnaa cudurro dhowr ah, waxa uuna ku wajahay sabar iyo ixtisaab. aad ayuu u caatoobay jirkiisa, waxaana cudurrada ku dhacay ka mid ahaa dhiigyari iyo cudurro kaga dhacay beerka iyo mid ka mid ah kelyihiisa. isagoo xaaladdaas ku sugan ayuusan shiikhu ka harin mudaalacaynta kutubta, taasoo muujinaysa ihtimaamka uu siiyey cilmiga sharciga ah iyo faafinta dacwada. geedhida sheekh albaani kadib masiiro dheer oo ay haraysay cilmi, dacwo, xanuun iyo sabar, waxa uu shiikhu geeriyooday maalin sabti ah 22 jamaadul aakhirah ee sanadkii 1420 hijriyada. allah ha u naxariisto sheekha, hana dejiyo jannaadkiisa, hana ka abaalmariyo wixii uu u qabtay diinta iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam. رغم العدا علماؤنا لم يرحلوا، فهواء مسجدنا غداء الباني. رغم العدا فرساننا لم يرحلوا، سرب البزاة سحائب البلدان. يا ناصر الدين الحنيف محاربا ومنابذا بدع المضل الجاني. وإذا سألت عن الحديث وأهله فاسأل يجبك على السؤال بيان.